barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir oo weheliyo maayirka degmada Yogoori Ila Xuseen Maxamed ayaa deeq raashin gaarsiiyay tuulada Guumeysa gobolka Sool. deeqda raashinka ay isugu jirta noocyada kala duwan ee raashinka ayaa waxa ka faa'iideystay in ka badan 1500 oo qoys kuwaas oo dadka ay xooluhu ka dhamaadeen. waxaana halkaasi ka warbixiyay deeqda raashinka barasaabka gobolka Sool iyo maayirka degmada Yogoori waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan. waxaan soo gaaray 500 oo qoys oo loogu talagalay dadkii ku cayroobay abaarihii ka dhacay dalka ayna saameeyeen dhammaan wixii ay ku noolaayeen dadkaas masaakiinta ah degan goboladan barigood intooda badan. waxaan u mahadcelinayaa marka hore ilaahay ka sugo waxaan u mahadcelinayaa walaalahayaga Sacuudiga ee deeqda ku deeqay in ilaahay miisaanka aakhira ugu daro. waxaan aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka shaqeysay oo waxaan shaqadii madaxweynaha dalka isagoo mar kasta u taagan ama ay tahay dareenkiisu inuu dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool abaaru wax yeeleeyeen inay helaan dulsoo kabasho iyo si ay noloshoodii mar labaad u dhistaan. waxaan halkan mahad gaar ugu celinayaa xukuumadda golaha wasiirada ka tirsan ee ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir dowlaha madaxtooyada iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta iyo guddiga abaaraha heer qaran oo juhdi fara badan ku bixiyay sidii dadkan ay u heli lahaayeen caawamadan maanta halkan taala ee lagu qaybinayo goobtan aanu joogno. waxaan leeyahay miisaanka aakhira ilaahay idinku daro. runtii sida la sheegay goboladan ama dalka oo dhan waxaa soo martay abaar baahsan oo dadkii ku reebtay saameyn weyn waxay haysteen ay ka dhamaadeen. anagoo og xukuumadda dadaal kasta inay u gashay inay dadka wax helaan haddana waxaan leenahay hay'adaha caalamiga ee caalamul islaam ee wax bixiya ee ku xidhan la taqaanahay dawladda ku xidhan inay mar kasta u tog hayaan ama ka war hayaan xaaladda goboladan bariga oo abaartii intii weynada ku dhacday. annaguna aan diyaar u nahay ka gobol ahaan inaan mar kasta deeqda meeshii loogu talagalay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin raashinkan oo 300 oo qoys ah oo u dhigma 600 oo qoys aan u qaybinay oo naga soo gaadhay xamlatul wadaniyatul sacuudiya oo ay noo soo marisay dawladda Soomaaliland. waxaa naga guddoonsiiyay oo na soo gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Cabdi Khayr Dirir ayaa na soo gaarsiiyay waana qaybinay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin cid Allah cidii juhdi ku bixisay raashinka waanu mahadnaqaynaa waana mahadcelinaynaa. sidoo kale dadka ku sugan kaamamka barakacayaasha ah ee deegaanada ayaa ka mahadceliyay deeqdaasi ay soo gaarsiisay xukuumadda Soomaaliland. xaaladdu waxay ku sugday intaan raashinka noo keenay yaa ilaahi ya Allah. ilaahay baa xamdi iska leh isaga qofur raxiima. waxa xamdi iska leh Sheekh Saciid iyo qoladana soo gaarsiisay raashinkan oo Sacuudi Arabiya ka yimi soo maray Soomaaliland. dawladda Soomaaliland dhamaantood waa u mahadnaqaynaa. Sacuudiga iyo Soomaaliland iyo culimadana soo gaarsiisay oo Sheekh Saciid ugu horeeyo baan u mahadcelinaynaa. aanu ka istaan ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala. halka kan maanta waxaanu soo gaarsiinay mashruucii xamladii dawladda Sacuudi Arabiya ee ugu talagashay dadka ku nool mandaqada tan ama dalkan reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada tan aynu joogno oo magaalada Golshano. waxaanu soo gaarsiinay raashinkii loogu talagalay oo ah raashin 200 oo qoys. tuulada Guumeysa oo dhanka waqooyi 70 kiiloomitir ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ku sugan in ka badan 700 oo qoys kuwaas oo dadkii ay abaartu xoolaha ka dhamaysay. waxayna ka codsadeen dhammaan ummadda muslimka ah inay soo gaarsiiyaan taakulo bini'aadanimo. Samiir Saciid, Bulsha TV, Laascaanood.